ugu dambeyntii waxaa soo hadlay taliye Sandheere oo ahaa taliyihii ciidanka birmadka koonfur galbeed balse isaga iyo Aadan Madoobe ay isqabteen. taliyaha ayaa Baydhabo isaga baxay waxaana uu tagay magaalada Buur-Hakaba. Baydhabo in uu ku hadlo waa loo diiday, Buur-Hakaba ayuuse ku hadlay. arrimo badan ayuuse kashifay oo bannaanka keenay iyo xogo markaasi xasaasi ah. Aadan Madoobe muxuu kala kulmay taliye Sandheere, maxayse tahay sababta uu uga baxay magaalada Baydhabo? waxaanu idiin soo gudbin doonaa hadallo la yaab leh oo uu ku hadlay taliye Sandheere, isagoona sheegay in Aadan Madoobe isaga oo magaalada koonfur galbeed kaliya in loo diiday Baydhabo inuu tago u dumiyo koonfur galbeed, balse aan laga aqbali karin hadda inuu ku tacadiyo isla markaana u bahdilo shakhsiyaadka qaybta ka ahaa halgankii lafta gareen looga saaray magaalada Baydhabo. haddaba halka ay isku maandhaafeen Aadan Madoobe iyo taliye Sandheere ayaanu idiin soo gudbin doonaa. intana guda galin marka koowaad soo dhawow muuqaalka la gare siina share gare si dad badan ay xogteena u gaadho waxgay. taliye Sandheere Buur-Hakaba ayuu gaaray, halkaas ayuuna shir jiraa'id ku qabtay, wuxuuna kaga sheekeeyey waxyaabihii keenay khilaafkii dhex maray isaga iyo sidoo kale Aadan Madoobe. waxyaabaha uu ka hadlayo waxaa ka mid ah in loo diiday rasaas in la siiyo ciidamadii hoos tagayay ee uu xukumay taliye Sandheere, oo wuxuu leeyahay rasaastii waana laga soomiyey. waxa uu sidoo kale sheegay in la bahdilay isagoo taliyihii birmadka ah oo xeradii ciidanka ee isaga uu xukumayay ee maayafuulka in aan haba yaraatee lala socodsiin tegitaankii Aadan Madoobe halkaas, oo weliba isaga qori lagu qabto dhexdeeda loo gala la yiri madaxweynaha ayaa halkan booqanayo ma geli kartid. arrimo badan oo waxa uu ka hadlay aad iyo aad mataqaanaa u muujinayo heerka uu gaaray khilaafka Aadan Madoobe iyo sidoo kale taliye Sandheere. muuqaalka ayaanu idiin soo gudbinaynaa, waxba ma rabno inaan ka hor dhacno. isaga ayaa inta ugu badan waxa uu sharaxaad ka bixinayaa waxyaabaha keenay isku dhaca isaga iyo Aadan Madoobe, sidoo kalena hanjabaad ayuu u diray oo leeyahay haddii hub meel lagu xaseysto cid ay ku joogayso lafta garaan ayaa 7 sano hub uu aruursanaya ku joogi lahaa magaalada Baydhabo. sidaan shalay dhiigga ugu shubnay in aan Baydhabo aan kugu qabanana isla markaana aan uga saarno lafta gareen ayaan maantana dhiigga ugu shubanaa ayuu yiri in aan ka saarno haddii aad bedeli weydid qorshahaaga iyo qaabka aad ula dhaqmayso aniga iyo beesheeda. wuxuuna sheegay hubka iyo dareyska ciidankiisa ay wataan ee magaalada Buur-Hakaba ay la tageen in uu yahay hub ay leedahay beeshiisa iyo tolkiisa, isagana uu mas-uulka ahaa. kaliya gaadiidka ay qaateen uu yahay gaadiidka dowladda. kuwaasna wuxuu sheegay in xerada ciidanka Itoobiyaanka uu u geenay halkaas uu ka qaatay Aadan Madoobe hadduu rabo, oo taasna wax haba yaraatee laga sii gorgortama aysan ahayn. odayga taliye Sandheere ahaa waa gar dhigtay Aadan Madoobena buudka ayaa la kormaray. ila daawada muuqaalkiisa. waxaa ila soo hadlaya mar walba dad kirbi iyo taangi aan habad karin saaran ku dhex jira yaamiina baar u ahay meeshaan mara oon ka hubi ee soo maraayeen saraakiil badan aan ka marqaatay xildhibaanadii iyo wasiiradii nala socday kamid yihiin. intaan soo marnay inta soo mara yaan dhahaynay khasaarada ugu weyn qofkay ku dhacday sarkaalkay ku dhacday anigu ahaa. gurigeyga markaan ka baxay 20 daqiiqo anoo ka maqnayn waxaa nala qaraxday miino, waxaa laga dilay ninkii xoghaynta ii ahaa iyo wiil aan afti u ahaa iyo wiil kaloo shacab ah oo biyo noo waday yaa ku dhintay 20 daqiiqo anagoo magaalada ka maqnayn oo 15 kilomitir xitaa gaarin. khasaaradii igu horeysay oo iga xanuunka badneed ay ahayd. waa laga gudbay habeenkii dhexdaan seexnay, waa ka sii gudubnay Daynuuna waxaan ugu qabsaday dagaal. qofka ugu horeeyay ee dagaalkaas safka koowaad ku jiray anuu ahaa. safka horaan ka dagaalamaynay magaalada markaan qabanay ee gaadiidka dowladda iyo ciidamada soo galeen. waxaa laga dilay 8 qof. waxaa laga furtay 2 qori oo beeki ama iyo maxay ahayd 7 qori oo AK ah oo tolkeedu leeyahay oo wax ay qaaraan iska ururiyeen ay ku soo gadeen oo aniga aan ka mas'uul ahaa aan soo qaaday. waa ka gudubnay dagaalkaas. ilaahay anaga inteena kala waana badbaadiyay. intii dhimatay Allah u naxariisto waa ku dhinteen.
waa laga gudbay habeenkii baydhabo aan seexnay agteeda subaxii waa galnay xilli 5 saac ah weerarka jidda horaan ku jiray gacanka maarata meesha aan dhaho la soo marayay magaalada meesha biyaha ay maraan oo asharow godkaas yaan habada soo bilawnay nimankii noo horeeyay ilaa aragaduud aan tago habada ay ugu socotay iyadoo weli taangiyada dawladda laga ilaalinayo in safka hore la keen meeshaan marna inta badan soo marayeen intaan gaaray intaan waa duuban yahay codkaas waa la hayaa alxamdulillah ragna waa noogu dhintay ragna waa noogu dhaawacmay dagaalkaas maalinkaas waxaan ugu bilowday waxaan fiicneen ciidamada ugu horeeyay qaybta lixdanaad ay galeen SNA bariis waxay galeen xerooyinkooda nabad sugid waxay ku xaroodeen xeradooda waxayna la socday maamulka nin walba xafiiskiisa iyo meelihiisa u galay siyaasiyiinta madaxtooyada ku xaroodeen ciidankii badbaadada la dhihi jiray oo baydhabo hore ugu soo baxay nin walba gurigiisa u galay ururkii buurha kaba aan ka waday oo intaasoo dad ah oo hadda aan soo sheegnay ilaa 11 qof ka dhinteen oo intaasoo qori ah oo baakaameed laga furtay oo dhaawacayna aan wadano meel aan degnaa waynay xarun dawladda leedahay oo nala dejiyay ma jirin aniga waxaan kireystay guri lacag jaabkayga ku kireystay oo muraaydeer ay leedahay helbaan hadda $500 bishii aan guriga u kireeyay raashinkoodii iyo waxa la waxay u baahan yihiin jaabkayga inaan ka fangareeyo ay noqotay waa ka gudubnay muddo bil markaa ciidankii meesha ku hayay oo duruuftoodii iyo xaaladahoodii aan maarata tabar u waayay waxaan iska goostay inaan celiyo degmadoodii aan ku celiyo buurha kaba waa diyaaradii waxbaan raadsanay diyaaradii baan helnay subaxdii anagoo baxnay oo eelboorka tagnay waxaa naga hor yimid Aadan Madoobe oo markaas olole doorasho ku jiray iyo Xasan Eelay wasiirka xanaanada xoolaha waxaana laga dhigay dad oo iska carooday oo waqtigii maarata loo baahnaa arada hataa aan la gaarin dhibaatada aniga gaarka ay ahayd iyaga ma ogeyn gudoomiyahana saas oo kale asaga intii la socotay asaga jaabkiisa guri kale u koreeyay sidoo kale Olombi dawladda hoose ah ciidan oo asagana staafkiisa iyo la socday gudoomiyaha isku meel deganayeen wixii buurha kaba oo reer buurha kaba ahayo meesha tagay dhamaantood nin guri kireystay oo jaabkiisa saaran bay ahaayeen intaas kadib shaqadan wax badan isla meel dhignay waxaan u sheegnay in dadkii tolkii aan mas'uulka ka ahayn ay nagu dhagan yihiin oo hubkii la furtay shalay idinka mas'uulka ahaa dawladda hortaana keenana la dhahay oo dawladana waa inaga gacan dheer tahay ta ugu yaraan baakaamadii baawartii ay naga guddo caafiyaashii iyo hataa iyo dadkii dhintay magtoodan rabnaa anaga ma dhihin laakiin hubkii oo dadkan aanahoodii iyo balkii iyo boonshidii iyo ukunta ay qaraameen ay ku soo gateen dawladda waa awooda in waxooda ay siiso 2 baakaam bay ahaayeen waxaan maarta si oo kaliya laba ugu sheegnay wixii meesha ka jiray wuxuu naga ballan qaaday in waxaas la bixinayo maalinka oo maarta doorashadiisa ay dhacdo haddii asaga oo la doorto inuu bixinayo lacag $100,000 oo Xasan Sheekh ka soo qaaday hubkaas iyo waxaas lagu bixinayo labadii baabuur oo markaas joogtayna waa ku mahadsan yahay oo la soo gubay waa gaday kadib sheekha dhowr maalmood kadib waana soo diray xisbiga JSB buurha kaba dad uma joogo waana meeshii uu ku dhashay hal gaara buurha kaba taga waxaan soo aadnay buurha kaba xisbiga JSB buurha kaba waxaa ka helay ugu yaraan 10,200 oo cod waa degmada kaliya oo shaqadan mar labaad badbaadisay bay ahayd
marka la guuleystay kadib waxaa la ii sheegay in la ii magacaabay xilka taliyaha birmadka cabasha aan muujiyey waxaan u sheegay inaan birmadka hadda aniga aan u qalmin shaqo birmad ama maarata meesha aysan ka jirin hadda maanta oo anaga aan qaban karno dad qaraaba oo wasiiro leh oo xildhibaano leh oo iyo kuwo kale oo siyaasiyiin ah baa igu dhigay waxaa la yidhi bilow waa iska gal